safarkiinu waxa uu ku wajahan yahay gobolada bari ee dalka si aan wax ugu ogaano halka uu gaarsiisan yahay heerka waxtar ee mashruuc horumarineed oo ka soconaya gobolada Sool iyo Sanaag. dhalinyarta gobolada Sool iyo Sanaag waxay ahaayeen dhalinyaro ahaantii ka go'doonsan gobolada kale. waxyaabaha uu mashruuc bedelay waxa kamid ah markii hore dhalinyarta isku maan xirneen laakiin hadda waxaan noqonay dad isku fikir ah oo isku mowqif ah oo ra'yiga wadaaga talada wadaaga isdhexgalka bulshada marka la eegayo ka dhalinyaro ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dhaliya waxa kula soo gudboonaan karta dhibaato oo la doonayo inaad xaliso odayaasha waxaan ka baranay sida khilaafka loo xaliyo dalada Soonyo waxay u astaysan tahay oo ka shaqeysaa waa arrimaha dhalinyarada adduunka waxa horumarka ka shaqeeya waa dhalinyaro dalada dhalinyarada ee Soonyo aad bay ugu mahadsan tahay mashruucan ballaaran ee muddada 2 sano ay waday waxay ahayd sanadii 2017 markii mashruuca talawadaag laga daahfuray gobolada Sool iyo Sanaag. mashruucan oo ay maalgelinayaan midowga Yurub ayaa waxa iska kaashanaya fulintiisa hay'adda kusfaamiyo dalada dhalinyarada ee Soonyo. ujeedooyin baa kulli mashruuca laga lahaa. maxay yihiin ujeedooyinka ugu waaweyn ee mashruuca laga lahaa? mashruucan ujeedooyinka laga lahaa waxay ahaayeen ugu horeyn inay dhalinyarta iyo haweenku ka qayb noqdaan hoggaanka dalka, xalinta khilaafaadka. sidoo kale waxa looga dan lahaa in ay dhalinyarta iyo haweenku dhaqaalaha wadanka maamulkiisa iyo maareyntiisa ay qayb ka noqdaan. mashruuca talawadaag oo muddo 2 sano ah soo socday wuxuu u badnaa tababar capacity-gooda aqoontooda kor loogu qaadayay dhalinyarada. dalada dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soonyo gobolka Sanaag intii ay mashruucan ka waday u dambeeyay waxay wax tar weyn bay tartay oo anaga ka xildhibaan ahaan aad iyo aad bay wax aan faa'iidadeedu u aragnay maadaama ay dhalinyar fara badan oo aan anagu isu keeni kari weynay hadday dhaqaale tahay iyo hadday wax kaleba tahay ay naga caawiyeen inay farsamahaan isugu kaaya keenaan dhalinyartii kulana u qabtaan oo aanu anaguna message-kayaga u gudbino oo hadday nabadgelyo tahay hadday horumarka degmada Ceerigaabo tahay 2018 laga soo bilaabay ilaa maanta waxaan ku jirnay tareerino kala duwan oo ay ka ahaayeen leadership-ku. waxaan faa'iiday leadership-ka muhiimadda uu leeyahay. waxaan kasbaday inaan maanta hogaamin karo waxa weeye ummad. dhalinyaradii hore kuma fikirsaneen inay ka qayb galaan hanka laakiin hadda markeen hogaaminka aan baranay oo kale mashruucan oo kale talawadaag aan qaadan oo kale dad baa jecel inay ka qayb galaan talada gobolka ama dalada wadanka. dhalinyarta waxaan leeyahay waxaan siyaasadda la yiraahdaa iyo inaad han yeelato ma adka. waxa kale oo jira buug uu soo saari doono mashruucani. buugaas waxa loogu talagalay inuu hago dhalinyarta isku soo taagaysa doorashooyinka golaha deegaanka ee soo socda. buugaasi waxa uu u hoga tusaaleynayaa ducadka ka doonayay iyo qaabka uu ka kasban lahaa iyo xisbigu iska sharixi lahaa ilaa marka uu guuleysto buugani kama harayo. waxa ku soo noqnoqday goboladan colaado ama shaqooyin loo adeegsado dhalinyarada. wuxuu mashruucani ka tarayaa dhibaatooyinkaas. mashruucu waxa uu ku guuleystay in dhalinyarta iyo haweenka laga qayb geliyo xalinta khilaafaadka. waxa kula soo gudboonaan karta dhibaato oo la doonayo inaad xaliso kadibna marka aad dhibaatada soo baratid waad ogaanaysaa sida wax loo xaliyo. mashruucan tan ku guda jirnay waxaanu isor fadhiisinay oo wada sheekaystay dhalinyaro iyo odayaashii xukumayay. odayaasha waxaan ka baranay sida khilaafka loo xaliyo taasi wax weyn ka bedelaysa dhalinyarta. maxay waxyaalaha la taaban kara ee mashruucani uu ka bedelay duruufihii adkaa ee dhalinyarada haystay hadday noqoto shaqo la'aanta? wuxuu sameeyay mashruuc 15 kooxood oo 20 qof ka kooban oo ka kala jira gobolada Sool iyo Sanaag. waxa la baray qaabka ay isku kaashan lahaayeen hadhow toolase ay mustaqbalka noloshooda wax ugu biiriyaan oo kolba mid ganacsi loogu furo ama ay mid ay wada leeyihiin oo kala ku furan karaan. dad baan awoodin inay shaqo abuur sameeyaan laakiin markay fikirka la keenay waxay go'aansadeen inay horumar qabsadaan shirkad noqdaan ama share dad la wadaagaan oo kale. waxaan ka koobanahay 20 xubnood. waxaan isku darkalnaa bishiiba inay qofkii aan iska bixino fee oo kale $4 waxaan iska aruurino. qolada Soonyana ma sha Allah waan la hadalnay wixii caawasho aan u baahanahay baahideena ah kulay wanaag soo jawaabtay. waxaan oran karayaa mashruucu 90% wuu guuleystay maadaama maanta ay jiraan dhalinyaro hogaamin karaya aanan indhahayga ku soo aragnay dhalinyaro mashruuca talawadaag ka faa'iideystay. gunti iyo gabagabadii maanta waxaan fadhinaa shirkii sanadlaha ahaa waxa aan aad ugu faraxsanahay haddii aanu nahay gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood dalada Soonyo inay maanta marti noo yihiin dhalinyaro ka kala socotay magaalooyinka Ceerigaabo iyo Caynabo. maanta nagala qayb galaya shirka arkaya ururadii dhalinyaradii la sameeyay sida public groups-ki iyo qaybihi kala duwan ee bulshada. aad waxaan ugu mahad celinayaa marka koowaad dhalinyarada ka timid Sanaag. waxaan leeyahay soo dhawaada reer Sanaag.
sool iyo sanaag waa mataano waa laba gobol oo runtii deris ah wax badan ka dhaxeeyaan haddaan yar idinka warramo dalada Soonyo waa dalad qaran waxay u astaysan tahay oo ka shaqeysaa waa arrimaha dhalinyarada Soomaaliland adduunka waxa wax bedela waa dhalinyaro waxa horumarka ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa runtii aan markii labaad maanta qabanaynaa dood ku saabsan sida ay dhalinyaradu uga qayb noqon karayso horumarka iyo hoggaanka suuban doodda waxa ka qayb galaya haldoorka iyo aqoon-yahanka gobolka ka qayb galaya intii uu shirkani socday ayaa waxaan waraysiyo kala duwan la yeeshay dhalinyaro ka socotay gobolka Sanaag dhalinyaradan reer Sanaag ee maanta metelaysa gobolka Sanaag ee ku sugan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waa dhalinyaro ka kooban 15 dhalinyaro ah alxamdulillah horta waxa ugu muhiimsan ee aan maanta Ilaahay ugu xamdinaqaya waxa weeye nabadda ka jirta deegaanka inta wadada u dhaxaysa Sanaag iyo Sool orna ahaantii wadada aan ku soo maray si nabad Ilaahayna nagu soo nabadgeliyay waxna dhiba aan arag ciidan amaanka sugaya orna ahaantii kantaroolada u taagan habeenimada inay amaanka sugaan oo shicibku ugu nool si ay amaan ugu noolaan lahaayeen bulshaduna ay noo soo galbinaysay inuu aanu soo gaarno Laascaanood maadaama aanu hay dhalinyaro reer Sanaaga oo ku socota Laascaanood si ay dhalinyartii ficooda ahayd ay u dhaxgalaan isuna bartaan ulana kulmaan waxaan ka nimid gobolka Sanaag gaaraan magaalada Argaabo Laascaanood runtii waa markii ugu horeysay nimaad aad baan ugu faraxsanahay runtii jawi wanaagsan bay nagu qaabilaan runtii wayna soo dhaweeyeen shir sanadeedkii labaad ayaa dhalinyarada gobolada Sool iyo Sanaag uga furmay magaalada Argaabo waxaana mas'uuliyiin isugu jira heer gobol heer degmo iyo aqoon-yahano iyo dhalinyaro ayaa Argaabo ku soo dhaweeyay dhalinyaradii ka soo kicitimay gobolka Sool dalada dhalinyarada ee Soonyo aad bay ugu mahadsan tahay mashruucan ballaaran ee muddada 2 sano ay waday wayna asiibeen dalada Soonyo run ahaantii dhalinyarada Soomaaliland wax badan u qabata Soonyo waxay soo qabanqaabisay barnaamij aad u muhiim ah dhalinyarada haddii dhalinyaradu ay ku kulmaan oo saddex galaan barasha imanaysa faham baa imanaya wada qabsi iyo iskaash ayaa imanaya marka taas Soonyo ahaan waynu ugu mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayran lanahay haddii dhalinyartu isku xidhan tahay waxa dhacaysa in wanaagaasi uu gaaro meel walba iyo gobol kasta